بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. casharadeenii hore ayaan wadayna isdaba jooga ahaa. suuratu inshiqaaq ayaan halkan ka gelaynaa. suuraddan waa suurad maki ah, waa aayadaheedana waa 25 aayadood weeyaan. suuratu infitaar gadaasheeda ayay soo degtay. waxay u hadlaysaa sida qur-aanka makiga u hadlo, ayay qiyaamaha iyo isbedel koonkan ku dhici doona iyo xaqiiqada insaankanu waxa uu joogo adduunkani iyo waxa uu la kulmi doono xaqiiqadeedu ayay maaragtay suuraddu aada iyo aada ugu nuuxnuuxsanaysaa. marka inaha tawxiidka unbaa iyo aakhirada iyo maaragtay ay xooga saaraysaa suuraddu. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, bismi illaahi araxmaan araxiim. ilaahay magaciisaan ku bilaabanaynaa. allah naxariista caamka naxariistay midda khaaska ah. ilaahay wuxuu yihi ida asamaau inshaqat. ida asamaau samadii markii inshaqat ay dilaacdaa layidhi, yacni ay dildilaacdo oo maaragtay muxuu ahaa daruurihii ay la dildilaacdo oo nidaamkeedii uu maaragtay isdhimo oo khaldamo. waa sida aayad kale ilaahay uu ku yidhi wayowma tashaqaqu asamaau bilghamaam. buurahaas iyo waxaan dhihi tegay daruuraha iyo sidaasoo kale la dilaacaysaa oo maaragtay insidaac baa ku dhacaya, nidaamkii oo dhan baa isbedelaya. yacni waxaa meesha kaaga cadaanaysa yacni isbedel koonka inuu ku imaanayo. waqtigaas markii la gaaraa layidhi, marka jawaabtii oo jawaab shardigii iyo waxaan dambe oo lagu cadfo gadaal ka imaanayo o dhan waxay noqonaysaa laaqa alinsaanu rabbah fawafaahu xisaabah. waqtigaas markii la gaaro samadu ay dilaacdo oo daruuraha la dilaacdo oo malaa'igtu soo degto, maanta ayada insaanku wuxuu la kulmayaa rabbigiisa, xisaabtiisana rabbi waa u oofinayaa, in khayran iyo haddii ay shartaa labadaba. yacni waxaa weye haddii wanaag la yimid iyo haddii uu khayr la yimid, qof walbaba wixii uu kasbaday natiijadeedii iyo miraheedii ayaa gacanta laga saarayaa. marka ilaah wuxuu yidhi ida asamaau samadii markii inshaqat ay dilaacdo oo wa-adinat ay adeecday maqasho lirabbiha rabbigeeda, waxuqat waana loo xaqiijiyey, yacni waxaa laga dhigay inay adeecdo oo rabbi ay amarkiisa qaadato oo qaadato ay adeecdo. yacni xaq baa waa lagu waajibiyey amarkii ilaahay inay qaadato. sidaas oo kale yacni xaqiiqa looga dhigay inay maaragtay amarka ilaahay qaadato. yacni xaqiiqun bihaa, yacni waxaa xaq ah inay adeecdo oy maaragtay khaliiqun bihaa inay sidaa yeesho oy adeecdo oo arrinka ilaahay amarka ilaahay ay dhegeysato qaadato. wa ida alardu dhulkii markii muddat la fidiyaale, dhulkiina markii la fidiyo oo hadda maaragtay saas oo kale maaragtay buurihii iyo ceelashii iyo muxuu ahaaye webiyaashii iyo waxaasoo dhan la baabi'iyo oo dhulkii oo dhan laga dhigo meel siman dhammaantii laga dhigo oo la baabi'iyo wixii kala dheeraadaha ku jiro dhan meesha laga suuliyo. waqtigaas oo wa alqad ay soo tuurtay banaanka soo dhigto ardadu dhulku ay soo dhigto maa fiiha dhexdeeda wixii ahaa, wax alla wixii dhexdeeda ku jiray oo wixii mowtada ahaayoo dhintay oo dhan
yacni in lasoo saaro oo saas oo kale maaragtay ay bannaanka timaado oo bacdigaa laga hadlayaa oo dadkii ay lasoo bixiyo qubuuray ka soo baxaan oo bannaanka yimaadaan oo wa alqad ay soo tuurto ardadii bannaanka soo dhigto maa fiiha gudaheeda wixii ahaaday oo watakhallad ay ka khaali noqoto yacni wax alle wixii ku jiray ay khaali ka noqoto bannaanka ay soo dhigto waay oo qudradii ilaahay awooddii ilaahay baa meesha ka muuqanaysa markaa oo wa adinad ay adeecday maqasho lirabbihaa liamri rabbihaa rabbigeeda amarkiisa ay maqasho oo in yacni soo tuuridda iyo maaragtay waxa gudaheeda ku jira inay bannaanka soo dhigto waa qaadashada amarka ilaahay ay qaadanayso amarka ilaahay qaadanayso sida samaduba inay dildilaacdo waxa weeyaan waa qaadasho amarka ilaahay ay qaadanayso maqlayso adeecayso weeyaan labaduba marka waa adinadu saasay maaragtay ay kugu ishaaraydaa waxuqat loona xaqiijiyo yani xaqiiqun bihaa iyadana waxaa dhab ah inay adeecdo maqasho dhulkii amarka ilaahay inay maqasho subxaanahu watacaala waqtigaas markii la gaaro oo darafkaas la gaaro insaanku wuxuu la kulmayaa rabbigiisa ilaahayna wuxuu u oofinayaa yacni camalkiisii wuxuu soo qabtay fii dunyaah adduunyadiisa intuu joogay wuxuu soo qabtay oo khayr ama shar ah kullu nafsin bimaa kasabad rahiinatun taas waayo yacni camalkaagii ayaa maalintaas ayaa lagu siinayaa mirihiisii iyo amaalmarintiisii gacanta laga saaraya haddaad wanaag soo qabatay miraheedii baad helin haddii aada adduunka intaad nooleed aada waqtigaaga ku bixidana miraheedii baad helin maalintaasaa miraheeda lagu siinaya marka xaqiiqadu sidaas waaye qof walbaahiba inuu fakaraa la rabaa oo is ilaaliyo waqtigiisa uu ka faa'iideyso uga faa'iideeyo lisaalixihi asaga maslaxadiisa waxay ku jirto fii dunyaa wa fii ukhraa aakhiradiisa iyo adduunkiisaba taasaa kula gudboon maxaa yeelay hadhowdii waxaa weeye qof kale oo adiga wax kuu taraya ood isku halaynaydo ma jiro adiga iyo camalkaaga waaye adiga iyo camalkaaga waaye camalkaagaasaad geed ugu xirantahay maadaama mustaqbalkaagii sidaas waa lagu yiri waxaa la rabaa adiga leyla nahaarin inaan hamigaaga u yahay sida aakhiradaadana ku badbaadi laheyd adduunkaagana aada wanaag waqtigaaga ku dhammaysa laheyd taasaa loo baahan yahay qof walba inuu xil iska saaro ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha alinsaanu insaankiyaa lala hadlayaa yacni waxa weeyaan innaka baa la yidhi insaankaanow kaadixunaa tahay yacni kii la kulma yani dhibaatoonaya kaadixun ay jaahidunaa tahay midkii jihaadaya oo tacbaya noogaya yacni sayrka ama socodka xagga ilaahay subxaanahu watacaala la kulanka ilaahay mid u socda oo u dadaalaya oo daalaya ayaa tahay weeyaan kaadixun ilaa rabbik rabbigaa intii ka ahaad u socotaa weeyaan weliba dadaal oo noog ah oo juhdi aad ku bixinayso la kulanka rabbiga inaad la kulanto kadxan yacni daalid waaye ama juhdi waaye iyo tacab ayaad bixinaysaa inaad rabbigaa la kulanto weeyaan famulaaqiihi waadna la kulmin rabbigaaga waxaad kula kulmin juhdigaas aada bixiday iyo waxa aad qabatay ayaad rabbi kula kulmaysaa waay yacni waxa weeyaan camalkaas aad ku dadaashay oo diwaala xayaatika aad qabanaysay ilaa geeridaada laga gaaro waa camalkaas waaye juhdiga lagu sheega kaas waaye yacni maalintii aad la bilaabay camalkaaga in la qoro ilaa maalintaad qabri ka gasho wixii aad qabanaysay xagga rabbiyaad ula socotaa qof dadaalayo waxaa tahay xagga rabbi u socda oo rabbi inuu la kulmo bicamalihi kula kulmo bijazaa'i camalihi waay camalkiisa amaalmarintiisii inuu kula kulmo oo rabbi subxaanahu watacaala markaas uu ka helo wixii uu intaas kusoo dadaalayay maaragtay noloshiisa oo dhan uu soo qabanayay yaa ayuha alinsaanu insaankaanow innaka adigu kaadixun kii dhibaatoonaya oo dadaalaya tahay ilaa rabbika rabbiga intii ka ah kadxan dadaalid iyo daal iyo noogayaa tahay famulaaqiihi kii la kulmaya
ayaa tahayoo yacni rabbigaa waad la kulmin bicamalika camalkaagaadna kula kulmaydaa waay fayujaaziika markaasuu kaa amal marinayaa calayhi camalkaas in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun. marka kadxiga lagu sheegay waxa waaye jahdu nafsi fi lcamal waalcanaa, waa nafta oo lagu dhibaateeyo oo lagu dirqiyo camalka oo lagu dadaalo sidaas oo kale maaragtay yacni inaad shaqada qabato saas oo kale weeyaan. marka camalkaas aada qabatay intii aada noolayd oo adduunkan aada ku noolayd ilaa laga gaaro geeridaada rabbigaad kula kulmaysaa weeyaan. rabbina waa kaa amaalmarinaya hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahay labadaba. meel aad kaga leexan kartahay ma jirto waay. marka waxaa nala gudboon waay marka wixii aan ilaahay kula kulmi lahayn inaan ka dhigno wax ilaahay raalli ka yahay, wax ilaahay diintiisa ku hagaagsan, wax annaka mustaqbalkeenna aakhiro noo fiican in qof walbaahba ku dadaalo oo meesha uu ku badbaadayo inuu qofku eegto oo waqtigiisa ku bixiyo. taa ayaa aada iyo aada u habboon maaragtay. waa lagu tusinaya, waa lagu sii faahfaahinaya. rabbi wuxuu yidhi marka sida aad ula kulmayso iyo sida lagu amal marinayo ayaa tusaale lagaa siinaya. ilaahay wuxuu yidhi fa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa, kitaabu camalihi waay, kitaabkii camalkiisa ku qornaa qofkii la siiyo, biyamiinihi midigtiisa laga siiyo, midigta qofkii laga siiyo, fa sawfa yuxaasabu ninkaa waa la xisaabin xisaaban xisaabid baa la xisaabin yasiiran ee fudud wey. xisaab fudud ayaa la xisaabayaa wey. cardi oo waxa weye acmaashiisa loo soo bandhigayo, kabacdina la iska cafinayo oo macsidiisa in laga cafinayo waay. daacadiina laga amaalmarinayo iyadoon munaaqasho lagu dheerayn oo maaragtay xujada lagu dheerayn munaaqashada. saasa cardigaas ale markii caaisha ay weydiinayay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waatuu yidhi maaragtay yacni qofkii xisaabka lagu dheereeyo qofkaasi waa qof maaragtay la ciqaabay waay. marka fa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo, yacni kitaabkii camalkaaga lagu qoray diwaala xayaatika waa noloshaada oo dhan intii aada nooleed wixii lagaa qoray ayaad waxaad ku mutaysatay in midigta lagaa siiyo. macnahaas waxaa weeye khayr baa lagaa qoray, khayrkaagiyaa ka batay, xumaantii ka batay, wanaag baa meesha kuu yaala. fa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa la siiyo biyamiinih, fa sawfa yuxaasabu ninkaa waa la xisaabin xisaaban yasiiran, xisaab fudud baa la xisaabinayaa. wayanqalibu waana gadoomaya, wuu noqonayaa ilaa ahlihi ehelkiisiibuu u noqonayaa li ehelkiisii jannada joogay ayuu u noqonayaa, xuurulciintii iyo ayuu u noqonayaa, ehelkiisii u noqonaya masruuran xaaluu yahay kii faraxsan. yacni dadkiisii ehelkiis wuxuu noqonayaa asagoo faraxsan ayuu u noqonayaa waay. liannahu wuxuu helay yacni amaalmarin wanaagsan ayaa la siiyey waay. amaalmarin wanaagsan, camalkiisii wuxuu ka helay natiijo wanaagsan buu ka gaaray, wanaag buu ka gaaray. marka waa noqonayaayo ehelkiisi wuxuu u tegay asagoo faraxsan waay. adduunkan ay ka dhacdaa qofku marka inta shaqo adag soo qabato, soo daasho, muddo dhan aada soo daba joogto, maalintii aada ku guulaysato shaqadaas ama camalkaas aad soo qabatay, farxad ayaad la dhacaysaa. dadkuna inay kula qeybsadaan, khaasatan ahalkaaga iyo dadka qaraabada ah waad jeceshahay saas oo kale maaragtay. marka ninkan waxaa la yidhi wayanqalibu waa noqonayaa ilaa ahlihi buu u noqonayaa masruuran xaaluu yahay kii faraxsanaa lay. marka dhinacaas waxaa lagaa tusaaleynayaa qoladii wanaagga camalkooda dhanka wanaagsan uu u batay waay, wanaagga la yimaadeen. ilaahay kuwaa nagu daro. qoladii kalea lagu soo bandhigayaa oo qofka la rabo inuu labada garab ku duulo waa labadaas, bayna alkhawfi waalrajaa. in qofku adduunka intuu joogo ku socdaa la rabaa. rajada ada ilaahay naxariistiisa rajaynaydo, ilaahay jannadiisa aad rajaynaydo, maqfirada ilaahay aad rajaynaydo, dhanka kalena cabsiba kugu jirto aad ka cabsanaydo ciqaabka iyo carada ilaahay aad ka cabsanaydo, wixii keenaya aad ka cabsanaydo,
waxaasoo dhan aad iska ilaalinaydo ood ku dadaalayso leyla nahaarin, taasaa la raameynayo amaal inaadan fadhiisanin. ilaahi wuxuu yidhi wa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabu camalihi, kitaabkii camalkiisa lagu qoray saxaa'iftiisii qofkii laga siiyo, waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa qofkii laga siiyo, dahri waa duudka dhabarka gadaal laga siiyo, yani bidixdii oo kale qofkii kitaabkiisa halkaa laga siiyo, bimacnaa dadka calaamad waxay u tahay dadka xumaanta camalkooda uu xumaaday oo dhankii xumaan mare ama gaalnimo ha ahaato ama macaasidii faraha badan oo uu suubinayo qofku ha ahaato. yani waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa kulu aayatin nazalat fi lkufaari fa inaha tajuru bidayliha cusaata almu'miniin. oo waxa weeyaan yani lama yidhaahdo gaaladii kusoo degtay keliya lama yidhaahdo, laakiin waxa weeyaan cusaadii naftooda waxa weeyaan way soo gelayaan. marka qoladii kitaabkooda laga siiyo waraa'a dahri dhabarkooda, yani dahrigiisa ama qofkii dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyo, fa sawfa yadcuu, kuwaas wuxuu u yeeran doonaa thubuuran, halaag buu u yeeran doonaa waay, halaag buu u yeeran doonaa, alla halaagiyo qaylo, yani halaag u yeeran doonay, yaa laytanii kuntu turaaban tiyo kale alla ahaadeena ciid ahaadeena, yani wuxuu tamaninayaa ciid inay noqdaan saasoo kale oon la xisaabinin, saas ay tamaninayaan, laakiin waxaas waxba u tari maaya. fa sawfa yadcuu wuxuu u yeeran doonaa thubuuran, halaag buu u yeeran doonaa, wayaslaa wuxuu geli doonaa saciiran, naarta saciira la yiraah ayuu geli doonaa, kuna guban doonaa kuleylkeeda iyo maaragtay ilaahay naga badbaadiyay xarigeedu ku guban doonaa, halkaasuu ku holcayaa, maaragtay halkaasaa lagu solayaa. marka labadii wejia lagu kala tusaaleeyey, oo qolana waxa weeye xisaabiya midigta qolada laga siiyey kitaabkooda waxaa lagu tusaalay xisaab fudud baa la xisaabinaya, ehelkoodana waxay u noqonayaa isagoo faraxsanaa leh. qoladana waxaa kitaabkooda waxaa laga siinayaa waraa'a dahri, dhabarka gadaashiisa laga siinayaa. marka waxa weeyaan wuxuu u yeeranayaa halaag, naartii saciirana waa gelayaa, allah inaga badbaadiyo. marka taas waxay ku tusinaydaa yani wadadaasaa furan, waa labadaas wado weeyaan. camalkaagu labadaa wado unbu mid ku qaadsiinaya inaad noqoto qolada midigta laga siinayo ee ehelkooda u noqonaya ayagoo faraxsan u noqonaya, ilaahay nagu daro, iyo inaad noqoto qoladaas maaragtay kitaabkooda min waraa'a dahri laga siinayo ee halaaga u yeeranaya, ee shallaynaya, ee qoomamaynaya, wayandamuuna walaa saacata mandamin, waqti aan qoomama waxba taraynin ayay qoomamaynayaan, markaasay naartii jahanamo ku holcayaan, ku gubanayaan. marka labadaas wado way kala furan tahay. adiga intaad nooshahay waxaa kula gudboon inaad dadaasho oo meesha wanaagga ah dhanka khayrku jiro inaad naftaada maaragtay ku ababiso oo naftaada xoog ku saarto oo camalkaas aad ku dadaasho, kaasaa kula haboon. dhammaanteedna la gudboon waaye, ilaahay nagu toosiyo, maaragtay allah nagu toosiyo. marka ninkan dambe ayaa la haystaa, waxaa lagu tusaaleynayaa kayfa kaana yowma an kaana fi dunyaa, adduunka markuu joogay xaalkiisu muxuu ahaa, limaada uu sidan u noqday, limaada uu jahanamo ugu jiraa, limaada uu halaagan ugu jiraa, waxbaa lagaa tusaaleynaya, la rabo inaad iska ilaalido adigu. waxaa la yidhi innahu isagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ahalkiisa markuu jooga adduunka masruuran, mid faraxsan uu ahaa way, iska faraxsanaa, yani adduunkan iyuu suu doona ka yeelaya waay, adduunyadiisaasu waxaa weeyaan farixa batarin yahay, waa iska qooqanaa waay, yani kibir iyo xaaraan ka dhowrsamaa, xumaan ka dhowrsamaa, wuxuu rabo qasayaa, gaalnimo ka dhowrsamaa, wuxuu rabo qasayaa, adduunkiisaasu ahaa waay, xarag furan, wax celiya ma leh, xuduud ma leh, wuxuu ka dhowrsanaya ma leh, sidaasuu adduunka ahaa waay. innahu asagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ehelkiisa fi dunyaa markuu joogay masruuran, mid faraxsan oo la farax geliy, yani wuu faraxsan yahay. innahu isagaa baa la yidhi danna wuxuu maleeyey
allan yaxuura inuusan soo noqonaynin, allan yaxuura allan yarjica waaye, inuusan soo noqonaynin sidaasuu malaynayo, yani isaga agtiisa yaqiin ka aheed waaye, uu yaqiinsanaya isagu wuxuu ma noqonaysa ilaa rabbihi, rabbigiisa inuusan usoo noqonayn isagoo xayi ah oo lasoo bixiyo oo qiyaamo uu ilaahay hor istaago inaysan warkaas war jira ahayn, yaa ayuu saasuu malaynayaa, saasuu iska dhaadhiciyey. adduunkan wax kaa dambeeya ma laha, adduunkan saad yeesho iska ka faa'iideyso, noloshan yartaa ka faa'iideyso, waxaad doonta iska suubi, xumaantaad doonta iska qas, warkaas war gaaban waayo, meel gaari maayo. ilaahay wuu inoo sheegay afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha wa anakum ilayna laa turjacuun. yacni waxa weeye meeshan qaaye ayaa jirta, hadaf baa jira lagaa leeyahay adduunkan joogitaankaaga, hadaf iyo qaayo. wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, jin iyo insi uma abuurin ilaa cibaadadayda mooyaan buu ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala. marka hadafkii iyo qaayadii lagu keenay inaad fahamto ayaa la rabaa maarta. balaa iska dhaaf uu yidhi ilaahay subxaanah, ina rabbahu rabbigiis, yaa rabbigu ha u noqon maydid waaye, ina rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaa bihi asaga basiiran, kii arkayuu ahaa weye. rabbigiis waa arkayey, rabbi kama qarsoonayn waay. balaa iska dhaaf inuusan soo noqonin waay, wuu soo noqonayaa, ay layaxuuranna waay, waana la xisaabinin waaye. marka ina rabbahu rabbigiis kaana wuxuu ahaa bihi asaga basiiran, kii arkaya buu ahaa, oo rabbi camalkiisa iyo wuxuu suubinayo rabbi waa arkayo, kama qarsoonayn, wax ka qarsoonaa ma jiro. ilaahi wuxuu yidhi marka falaa uqsimu waa dhaaranaya waay, ya waan dhaaranayaa buu yidhi allah subxaanahu watacaala, waa dhaaranayaa bishafaqi ayaan ku dhaaranayaa, guduudka waaye qoraxda markay ay galabtii dhacayso shafaqaas. falaa uqsimu bishafaqi, falaa uqsimu bishafaqi, yani quruubka markay sii dhacaydo galabtii yani soo muuqanay guduudkaasaa la yidhaahdaa, ama maaragtay oo cadaankii waxa ay la socdaan shafaqkaasaa la yidhaha, maarata waa jilicsan yahaa la yidhaah. marka yani shafaqaasaan ku dhaaranayaa, waleyli hameenkii baan ku dhaaranayaa, iyo wamaa wasaqa wuxuu jamciyey, wuxuu koobay, wixii maalintii fidsanaa oo hameenkii aruuray, yaa kaas ayaan ku dhaaranayaa. waleyli wamaa wasaqa, iyo hameenkii wuxuu jamciye aruuriyey ayaan ku dhaaranayaa. waalqamari dayxiyaan ku dhaaranayaa, ida tasaqa hadduu dhammaystirmo, yacni ida ijtamaca watama nuuruhu, nuurkiisuu taam noqdo oo yacni badri uu noqdo 14 15 markuu noqdo saas oo kale uu dhammaystirmo, kaasaan ku dhaaranayaa. waxa makhluuqaadka ilaahay ay ka mid yihiin, ilaahayna makhluuqaadkiisa midkuu rabo uu ku dhaartaa subxaanahu watacaala, wuxuu diidaya male. adigana laakiin annaka inaan ku dhaaranno ilaahay maana cid kale inaan ku dhaaranno maaragtay ma jirto, nooma banaana waay. marka jawaabtay maxay noqotay? latarkabunna kortaanoo kortaane, dabaq kortaanaa la yidhi, yacni martabo waay, xaalad kortaane, can dabaqin xaalad kale ka bacdiyaa layidhi, yacni xaalad kale ka bacdi ayaad koraysaanaa laleeyahy. gaaladii haddii lala hadlayo kafaarti laga dhigo, yacni waxaad koraysaan xaala bacda xaala, axwaal iyo axwaal kale oo ka gedisan, dabaqaad iyo maraatib, shidada iyo xagga halaaga iyo cadaabka isku daba jooga ayaad maraysaan waay, ayaad maraysaan. geeridiiyaa ka mida, qiyaamihiyaa ka mida, bacdiga laissoo bixinaa ka mida, waxyaalo badaadna maraysaa. amase xaalada qofka bini aadanka muslimka ah uu marayo axwaashiisaaba kala gedisano, adduunka markaad joogtaba waxa weye marba xaaladaa ku sugan tahay, mar dhalinyaro baad tahay, mar duqaad tahay, mar basibaad tahay, mar waa jiran tahay, mar waa caafimaad qabtaa, yacni axwaal mukhtalifa ayaa saas oo kale kusoo marayda. marka ilaah wuxuu yihi latarkabunna kortaane oo marka haddii gaalada laga dhigo dabaqan ayaad koraysaan, dabaq can dabaqin bacda dabaqin, dabaq kale bacdiyaa leeyahy, yacni axwaalan bacda axwaalin, ahwaal isdaba joogta iyo dhibaatooyin badan isdaba jooga ayaad la kulmi doontaan waay, midba midka kale kasii daran yahay waay, midba midka kasii. marka kortaan waxaa loola jeedaa waad la kulmaysaan waay, waad la kulmaysaanoo
waad maraysaana loo jeedaa. yacni waxaa lagu dhaaran waxa weeyaan bacthigu inuu dhab yahay iyo waxa ka dambeeya oo min ahwaalin wa shadaa'ida, ahwaasha iyo shidooyinka iyo dhibaatooyinka ka dambeeya inay dhab yihiin. kaasaa lagu tusaaleynaya oo ay kula gudboon tahay inaad u diyaar garowdo dhibaatadaas soo daba joogta. allah inaga badbaadiye. ilaahay wuxuu yidhi marka famaa lahum xal ahaantooda oo laa yu'minuuna aanay rumaynaynin. yacni idaa kaana sha'nuhu ilaahay sha'nigiisu hadduu sidaa yahay oo maaragtay qudradiisa iyo awooddiisa iyo sancadiisu ay sidaa tahay, famaa lahum xal ahaantooda ah oo laa yu'minuun aanay u rumaynaynin iimaanka ilaah inay rumeeyaan, bacthigii inay rumeeyaan iyadoo adiladii sidaa u caddahay, maxaa ka mancinayo u diidayaa laleeyahy. wa idaa quri'a markii lagu akhriyo calayhim korkooda alqur'aanu qur'aanka markii lagu akhriyana laa yasjuduuna aanay u sujuudayn u hogaansamayn, ay laa yadcanuuna waay, yacni aysan u hogaansamaynin oo madax adayga iyo kibriyaaga iyo maaragtay diidmada maxay ugala hor imaanayaan? haddii adiladiiba sidaa u caddahay, sababta ku kallifaysa maxay taa lagu leeyahy. famaa lahum xaal ahaantooda oo laa yu'minuun aanay rumaynaynay allah subxaanahu wa tacaala. wa idaa quri'a haddii la akhriyo calayhim korkooda alqur'aanu qur'aanka lagu akhriyana laa yasjuduuna aanay sujuudaynin oo ilaahay aysan u hogaansamaynin, maxaa ku dhaca la leeyahy. bal iladiina buu yidhi ilaahay subxaanah, bal iladiina inay hogaansamaan iska daa, inay sujuudaan iska daa, khuduuc inay suubiyaan iska daaye, aladiina kafaruu kuwii kufriyey yukadibuuna way beeninayaan, qur'aankii way beeninayaan, way inkirayaan, waa kasoo horjeedaan. wallaahu rabbina aclamu kii og weeye bimaa yuucuuna waxay qarinayaan oo qalbiga ku hayaan, ay bimaa yudmiruuna fii suduurihim min alkufri, waxa qalaabtooda ku jira oo ay ku qarinayaan oo gaalnimada ah. rabbi waa ka warqabaa wax ka qarsoon, carada ay u qabaan diinta ilaahay iyo fogaashada ku jirta, waxaasoo dhan rabbi waa ka warqabaayo waa ka amaalmarinaya. wayujaaziihim waay. wallaahu rabbi aclamu wuu ogyahay bimaa yuucuuna waxay idmaarayaan qalbiga laabaha ay ku hayaan, rabbi waa ka warqabaa wey, waxba kama qarsoona allah subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed buu yidhi alleh, fabashir u bishaaree nebi allow hum kuwaas kaafiriinta u bishaaree bicadaabin ugu bishaaree cadaab aliimin mu'limin laxwiya xanuujiya, cadaab aad iyo aad u xanuujiya oo cadaabkii jahannamo ah ugu bishaaree waay. ilaahay naga badbaadiy, waa arrin aad iyo aad u xanuun badan. cadaabkaas ugu bishaareeyaali, cadaabka ugu bishaaree. fabashirhum kuwaas kufaarta ah iyo wixii la halmaala ugu bishaaree bicadaabin cadaab ugu bishaaree aliimin mu'limin laxwiyo xanuujiya, cadaabka ugu bishaaree. yacni masiirkooda aakhiro kuwaas weeye. mar haddaadan qur'aanka ilaahay u hogaansamaynin, mar haddaadan ilaahay rumaynaynin, mar haddaadan alla amarkiisa qaadanaynin, mar haddaadan sidaa yeelaynin, macnaheedu waxa weeye meesha kuu dambaydaahe hiya albishaaratu bijahannam, jahannama lagu bishaareeyo wey. ilaa laakiinse aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu saalixaati, camalka wanaagsan suubiyey, ilaahay bay rumeeyeen, rasuulkiisiyay rumeeyeen, wax kastoo ay waajib tahay in la rumeeyo ayay rumeeyeen waay, iimaankii la yimaadeen. wa camiluu saalixaati, camalkii wanaagsanaana way suubiyeen, waa acmaashii wanaagsaneed suubiyeen. lahum kuwaasi waxay leeyihiin mu'miniintii waaye ajrun amaalmarin bay leeyihiin, ajrigaasoo hayru mamnuunin mid la gooyo keyrkiisa ah, hayru maqtuucina laleeyahy. yacni waxa weeye waa khayr iyo ajri muctad iyo muxua gudbaya oo loo tirinayo oo loo xisaabinayo oo maaragtay yacni wanaagoodaas wanaag wanaagsan waay. yacni camal la tirsado oo macno gala oo qiimo leh ayay maaragtay wey camalkoodiio muxuuha laga goy maayo. yahum waxay leeyihiin yacni kuwaasi ajrun amaalmarin oo hayru mamnuunin hayru maqtuucin mid la gooyo keyrkiisa. ilaahay kuwaas nagu daro wanaagsan ee camalka wanaagsan la yimaada, kuwii aayadaha qur-aanka ka faa'iidaysana allah inaga dhigo, camalkoodana kuwii saxoo toosiya allah inaga dhigo, islaamnimadooda kuwii dhowrsado oo ku dhowrsado ilaaliya, iimaankooda ilaaliya,
manhajkii wanaagsanaa oo saxaabadii iyo uu nabigii ilaahay kaga tegay iyakana kaga dayda allah inaga dhigo dariiqa wanaagsan kuwii mara oo maaragtay ku dayda sunnadii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxyaalaha xunxunka iyo bidcadii wixii la halmaalana ka dhowrsada allah inaga dhigo wasala allahu wasalama calaa sayidina maxamed.